inuu ka hormarno sida ay warinayaan inta badan warbaahinta dalka Tunisia ra'iisul wasaarihii dalkaasi Elias El Fakhfakh ayaa xilka iska casilay kadib fadeexad musuqmaasuq oo uu wajahayay maalmihii ugu dambeeyay waxaana lagu shaaciyay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha in Elias Fakhfakh xilka uu iska casilay isla markaana warqadda iscasilaada subaxnimadii Arbacada uu soo gudbiyay isla markaana laga aqbalay waxa ay arintan ku soo aaday iyadoo Mr Fakhfakh uu wajahayay culeysyo siyaasadeed oo uga imaanayay xubnaha baarlamaanka isla markaana isbuucii hore waxaba ay ahayd xaalad halis ah oo uu ku dhawaa xitaa in lagu soo oogo dambi la xiriira in wax isdabamarin uu sameeyay waxa uu joogay xafiiska wax ka yar 6 bilood sida daraadeedna waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii muddada ugu xil yaraa ee soo mara Tunisia iscasilaada Fakhfakh ayaa sidoo kale waxa ay ku soo beegantay xilli khilaaf culus uu ka dhex jiro baarlamaanka oo uu hogaamiyo xisbiga Nahda waxaana sidoo kale dad badan oo darsa arrimaha sharciga ay sheegayaan marka loo eego cadeymaha lagu hayo ra'iisul wasaaraha inay yihiin kuwo xitaa dambi lagu soo oogi karo oo xabsiga loo dhigi karo waxa lagu eedeeyay oo kamid ah eedeymaha waaweyn ee loo soo jeediyay tan iyo markii xafiiska uu yimaaday in uu heshiis la galay shirkado dawladda howlo kala duwan u qabanayay waxaana la aaminsan yahay inuu ka faa'iiday lacag dhan 15 milyan oo dollar una dhiganta 12 milyan oo pound sidoo kalena ka tagitaankiisa xafiiska dad badan waxa ay sheegayaan inay tahay fadeexadaas mid aan weligeed ka hareyn isla markaana ay haboonaan lahayd inuu ku adkaysto in xafiiska uu sii joogo isagoo dhowr jeer oo hore warbaahinta la hadlay isla markaana sheegay in haba yaraatee aysan jirin fadeexad la xiriirta isaga oo ku saabsan in wax isdabamarin uu sameeyay amaba lacagta dadweynaha uu dhacay warsaxaafadeed uu soo saaray ra'iisul wasaaraha 2 maalmood ka hor ayaa sidoo kale wuxuu ku cadeeyay in dad dana gaar ah leh isaga ay ku qasbayaan in xafiiska uu ka tago laakiin aysan jirin fadeexada sida loo boonbooninayo waxaana uu ugu baaqay guud ahaanba muwaadiniinta dalkiisa inay isaga aaminaan isla markaana si daacad ay ku dheehan tahay ayuu u ballan qaaday in uu ugu adeegayo ugu dambeynse waa uu ka tagay xilka lamana oga cidda rasmi ahaan bedeli doonta waxaase la filayaa in saacadaha soo socda ama maalmaha soo aadan qof cusub la keeno xafiiskaasi wararka Afrikana hadii aynu eegno madaxweynaha Malawi waxa uu ku boorinayaa muwaadiniintiisa in ay salaado isugu yimaadaan isla markaana ay soomaan si dhibaatada COVID-19 dalkaasi alle uga badbaadiyo madaxweynaha dalka Malawi Mr Lazarus Chakwera ayaa waxa uu ugu yeeray guud ahaanba muwaadiniinta dalkiisa inay ku soo biiraan barnaamij isaga hormuud uu yahay oo guud ahaanba duco guud loogu sameynayo dalkiisa isla markaana sidoo kalena salaad lagu dukanayo iyadoo uu sheegay in arintan aysan quseynin dhinaca diimaha ee ay tahay qof walba oo dalkiisa u dhashay in uu adeeco baaqa madaxweynaha ayaa waxa uu yiri waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka haysta diimaha kala duwan ee dalkayga ku nool dadka aan muwaadiniinta ahayn ee dalkayga ku sugan in ay maalin soomaan isla markaana ay 3 maalmood ay markaasi goobo fagaara isugu yimaadaan si ay u tukadaan waxa sidoo kale uu sheegay in uu jeclaan lahaa in axadda soo socota ay ugu horeyso maalinta ay hirgelinayaan codsiga madaxweynaha waxa uu weydiisanayaa culamaa diinka in ay hormuud u noqdaan hirgelinta barnaamijkan oo uu sheegay in dalkiisa wax badan ay ka bedeli karto marka loo eego dhibaatada uu dalkiisa kala kulmayo coronavirus isagoona sidoo kale sheegay in ilaahay qof walba uu arkayo isla markaana haddii alle la baryo wixii laga baryo aan la weynin waxaana uu sheegay in ay haboon tahay in si isku mid ah ducada dalka loogu midoobo gabar uu dhalay hogaamiyii hore ee dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela oo geeriyootay isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa la shaaciyay inay u geeriyootay COVID-19 kadib baaritaano dheeraad ah oo lagu sameeyay
Zindizi Mandela oo ah gabadhii ugu yareed ee uu dhalay hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ahaana madaxweynihii ugu horeeyay Afrikaana ee dalkaasi hogaamiya Nelson Mandela ayaa geeriyootay Isniintii oo isbitaal ku yaala Johannesburg ay ku geeriyootay waxaana la sheegay in xanuun daran ay dareemaysay intaysan geeriyoonin baaritaano dheeraad ayaa lagu sameeyay si gaar ahaaneed ayaa loo dabiibayay hase ahaatee da'da 59 sano ayay ku geeriyootay iyadoo la sheegay in baaritaano dheeraad ah oo lagu sameeyay Isniintii kadib la ogaaday in ay qabtay coronavirus. waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay Zondawa Mandela oo ka mid ah xubnaha qoyska waxaana uu sheegay oo TV-ga dawladda uu sheegay in dhaqaatiirta ay u cadeeyeen gabadhan inay qabtay cudurka coronavirus isla markaana ay aad uga naxeen marka loo sheegay in gabadhooda ay u geeriyootay cudurkan isagoona sheegay in iminka xubnihii aadka uga agdhawaa gabadhaas intii ay nooleed ay ku qasban yihiin in si iskooda ay isku karantiilaan. Koonfurta Suudaan haddii aynu eegno Salva Kiir waxa uu sameeyay isbedel aan sidaa u sii buurneyn oo xubnaha golihiisa wasiirada ah tan iyo markii dawlad midnimo qaran laga dhisay Koonfurta Suudaan. wararkii ugu dambeeyay ee wakaaladaha wararka dalkaas ay qorayaan waxa ay sheegayaan in isbedelkan aan sidaa u sii buurneyn ee madaxweyne Salva Kiir uu sameeyay ay tahay mid uu isbedelo kooban ku sameeyay waxaana kamid ah in madaxweynaha uu magacaabay Deng Alor Kuol ninka lagu magacaabo ninka geeska Afrika u qaabilsan dhinaca caafimaadka dawladdiisa isla markaana waxa uu ku cusboonaysiiyay booskaasi ninkan haatan loo magacaabay Luke Chok oo geeriyooday bil ka hor ka oo kamid ah golaha wasiirada Koonfurta Suudaan. ninka xilkan loo magacaabay ayaa waxa uu yahay nin xilal kala duwan horey uga soo qabtay tan iyo markii madax banaanida dalkaasi uu ku dhawaaqay isla markaana waxa loo arkaa nin ka soo bixi kara booskaas. sidoo kale Salva Kiir ayaa waxa uu u magacaabay Chok Chakor booska wasiirka wasaaradda waxbarashada isla markaana waxa uu u arkaa in booskan uu yahay mid muhiim ah waxaana laga qaaday Saleh Moha oo horey u ahaa nin ka shaqeynaya arrimaha waxbarashada laakiin loo arkay in isbedel wanaagsan uusan sameyn. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay Afrikana haddii aynu sii eegno maxkamad ku taala Tanzania waxa ay ku amartay xisbiyada guud ahaanba siyaasadeed ee dalkaasi ka diiwaan gashan in haddii doorashada muran uu ka dhasho maxkamadda ay go'aan ka gaari karto. tani waxa ay ka hor imaanaysaa qodobo ku qoran dastuurka dalkaasi oo mamnuucaya in maxkamad la aadi karo haddii muran uu ka dhasho natiijada doorashada. maxkamadan ku taala Arusha fadhigeedu yahay ayaa waxa wargeys lagu magacaabo muwaadinka oo ka soo baxa caasimada dalkaasi waxa uu ka daabacay warbixin ku saabsan in ay maxkamadda gabi ahaanba daaqada ka tuuri karto qodobo muhiim ah oo ku jira dastuurka dalkaasi oo mamnuucaya in qofka guuleysta maxkamad lala aadi karo natiijada uu ku soo baxay oo shaki laga muujin karo isla markaana maxkamadda ayaa ku dacwoonaysa in tani ay tahay tallaabo lagu xoojinayo xuquuqda aadanaha iyo in qof kasta oo muwaadina xuquuqdiisa uu helo iyadoo sidoo kalena si gaar ahaaneed loogu baaqayo mas'uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi inay u hoggaansamaan go'aanka maxkamadda ka soo baxay. sidoo kale waxaa la fahansan yahay in madaxda ugu sareysa dalkaasi ay qodobkan aad u diidi doonaan isla markaana waxay u badan tahay in gabi ahaanba ay ka soo horjeesan doonaan dadaalada uu wado ay wadaan maxkamadda mas'uuliyiinta ugu sareysa oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwo iminka ay adag tahay hirgelintooda. Indiana haddii aynu eegno 1 milyan ay ku sii dhow yihiin dadka ugu xanuunsan gudaha dalkaasi coronavirus iyadoo walaac xooggan laga muujinayo in xaalad adag dalkaasi uu galo haddii isbedel wanaagsan oo cudurkan lagu xakameyn karo mas'uuliyiinta dalkaasi aysan la imaan. waxaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in 24 saac aynu ka soo gudubnay 32,695 qofood uu soo ritay coronavirus guud ahaanba gobolada dalkaas uu ka kooban yahay. tirada ayaa ku dhow 1 milyan inta badan magaalooyinka waxaa saaran bandow sida oo ay tahayna dad badan gurigahooda ay ku gaajoonayaan oo ma heli karaan xitaa wax ay noloshooda ku dabiraan. tallaabadan ayaa dadka naqdiya siyaasadda dawladda waxa ay ku tilmaameen in wax qorshaha aysan ka lahayn mas'uuliyiinta dalkaasi hogaaminaya in dadka naftooda la badbaadiyo isla markaana ay ku fashilmeen xakameynta cudurkan.
dadka India ku sugan ayaa iminka waxay u dhagtaagayaan tallaabada kale ee dowladda ay qaadi doonto iyadoo tirada gudaha dalkaasi uga dhimanaysa cudurkan aad ay u sii kordhayso. waxaa halay la jabsaday baraha Twitter-ka ay ku leeyihiin shakhsiyaad iyo shirkado caan ah. Shakhsiyaadka waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, madaxweyne ku-xigeenkiisii haddana ah musharax doorasho Joe Biden, Jeff Bezos oo ah ninka dunida ugu taajirsan, iyo ninka ku xiga ee Bill Gates. Shirkadaha waxaa ka mid ah la jabsaday akoonadooda Apple, Uber oo arrimaha ka shaqeysa baabuurta, iyo weliba mid ka mid ah akoonada gaarka ah ee shirkadda Twitter-ka qudheeda. Dadka jabsaday ayaa barahaasi ku qoray in qofkii 30 daqiiqo gudahood u soo dira. Dadka jabsaday barahaas ayaa ku qoray qofkii 30 daqiiqo gudahood u soo dira $1,000 inay heli doonaan $2,000 oo degdeg ah. waana sheekada ugu hadal haynta badan guud ahaanba dunida saakay.